degmada Afgooye waxaa lagu soo gabagabeeyay shir sanadeedkii gudoomiyaasha degmooyinka uu soo agaasimay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Shirka sanadkan waxaa looga hadlayay arrimo dhowr ah si gaar ah dardargelinta howlgallada ka dhanka ah khawariijta. Shirka waxaa si wadajir ah u soo xiray gudoomiyaha gobolka, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka amniga. Ugu horreyn waxaa hadal ka qaatay gudoomiyaasha degmada Afgooye Marko Barawe Awdhegle. aadaan ugu faraxsanahay maanta in Afgooye shirkan lagu qabto waayo daxgal bulsho iyo daxgal maamul ay noqonaysaa. Ana maanta ma aqoonin maxaa leeyahay gudoomiyaha xigeenada degmada ma aqoonin gudoomiyaha gobolada qaar kamid ah oo inta jooga ma aqoonin laamaha amniga aad isku baranay waxaana mar walba maxaa leeyahay sabab in meel cusub la tago si dadkii bulshada ahaa waxay xitaa qabaan iyo xaaladaha degmada ku sugan tahay degmadan waxa laga yaabaa wax ay ku qurux badan tahay oo hawl badan oo qurux badan tahay sameeyay in laga qaato maadaama ana degmadeen degmo nabad ay tahay oo wax badan ka jira xaaladaha horumar in nafkeeda xogo idan maxaa lahayd sida dadkii ay u sameeyaan xog u wadaagaan oo xaaladaha jira iyo adeegyada bulsho socdo iyo inuu aad u mahadcelinahay walaal saaxiibkay Hiraawe aad u mahadsan tahay inta 4 maalin kula joognay sida noo soo dhaweysay qurux badan waxaa nasiib u yeelatay in lagu qabto degmada Afgooye shirkaas wuxuu ahaa shir oo fuud aad u sareyso ee ka soo qayb gashay waxaa laga hadlay waxyaabo badan oo amniga ugu horeeyo waayo haddii amni la helin nolosha waa asaasigeeda ama tiirkeeda koowaad waxa waaye waxa asaasi in amni la helo qofka markuu amni helo waxyaabo kale oo essentialka ah oo toosan degmada Afgooye waxay culays iska saartay in shirkaas si nabad ah uu qabsoomo runtii waxaa la isla qaatay in kambaniyada contractyada la siinayo ay xaq u leeyihiin inay servicekaas iyagu maamulaan laakiin dokumentiyada iyo shuruuc iyo materialka lagu qabanayo shaqadaas inay yihiin waxay iska leedahay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo iyagu berito u ah wax iyaga back up u ah oo company uu baxaya laakiin ma tagaayo dawladnimada ma tagayso maamulka gobolka ma tagaayo maamulka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dokumentiyada iyo setup-yada lagu shaqeynaa inay noqdaan wax dawladdu ay leedahay waa wax aad u wanaagsan in la update gareeyo lagu shaqeeyo shuruuc kala duwan aadna looga hadlay dakhliga laga qaado bulshada deegaanka maxaa lagu celin doonaa idin naftirkeeda in ay noqotay qodobyo aad u wanaagsan in laga naqaasho nidaamka kala dambeynta hadday tahay heer gobol iyo heer degmo ila degmo gudoomiyaha u sareeya ku xigeenuu leeyahay degmooyinka qaarna golo deegaan bay leeyihiin adoo kala dambeynta xoogga la saaray systemka kala dambeynta inuu shaqeeyo gudoomiyaha gobolka iyo ku xigeenadiisa systemkooda wada shaqeyn inuu hagaago systemka degmana heer degmana oo shaqeeyo si dawladnimadu ay u noqoto xiriir wada toosan ay u noqoto wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiir ku-xigeenka amniga ayaa dhankooda goobta ka hadlay runtii si qurux badan u qabsamay degmada Afgooye dhammaan ay ka soo qayb galeen 8 gudoomiye degme iyo maamulka gobolka uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dhammaan saraakiisha amniga ee ka shaqeysa gobolka Shabeellaha Hoose runtii shirkaas si qurux badan buu u qabsamay wax badan lagu falanqeeyay oo boqolkiiba boqol ah amniga guud ee Koonfur Galbeed si gaar ah amniga Lower Shabeelle anta waxaa noo suurta gashay in gobolka Shabeellaha Hoose maamulka gobolka iyo dhammaan degmooyinka 8 degmo ee Shabeellaha Hoose ay ka kooban tahay maamulayaashooda in aan kulan la yeelano anoo ka socdo wasaaradda arrimaha gudaha marka kulankaas oo arrimo badan lagu falanqeynayay kaasoo hadafkiisa ugu weyn uu ahaa sidii wada shaqeyn degmooyinka ay yeelan lahaayeen iyo maamulka gobolka iyo ka state ahaan ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose mudane Ibraahim Aadan Cali Najax oo shirka si guud u soo xiray ayaa la wadaagay gudoomiyaasha iyo saraakiisha sida ay muhiim u tahay in wadajir loo dardargeliyo dagaalka khawariijta gudoomiyaha ayaa si gaar ah u faray gudoomiyaasha inay abaabulaan shacabka iyo ciidanka deegaanka si loo xaqiijiyo hadafka ah in khawariijta laga xoreeyo guud ahaan gobolka aan uga hadalno si guud ahaan xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen haddii aan nahay maamul heer gobol iyo heer degmaba annaga ayuu noo soo xil saaray mas'uuliyadda shacabka ku nool gobolkan meel walbo ay joogaan waajibaadyadeenan waxaa ka mid ah inaan dadkana u adeegno si ay u helaan amni si ay u helaan adeeg bulsho sidaas la mid ahna aan garab istaagno ciidanka qaranka Soomaaliyeed
meel walbo ay joogaan, meel walbo ay ka howlgalaan. waajibaadkaas si loo fuliyo marka wuxuu u baahan yahay isku xirnaan, wuxuu u baahan yahay wada tashi, wuxuu u baahan yahay qorshe, wuxuu u baahan yahay waajibaadka nana soo saaray ee dowladnimo inay naga go'an tahay daacadna aan ka nahay. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo taliyaasha ciidamada amniga ah ee gobolkan ka howlgala meel walbo ay joogaan iyo shacabka gobolkan ku nool oo taariikh Soomaali oo dhan ay ugu horeeyaan runtii dhigay sameeyey, taasoo ahayd nimankan khawaariijta ah ee dowladiidka ah, diindiidka ah, mooryaan diimeedka ah ee gobolkan iyo ummadda Soomaaliyeedba muddo fara badan isku dayayay inay dhibaateeyaan dadkii ka hortaagnaa. dhammaantood meel walbo ay gobolkan ka joogaan waan u mahadcelinaynaa. Aways Muumin Xasan Aways, okay, warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose, Afgoy.